Assalaamu calaykum. Maanta waxaan nii wadaa shanta koob ee ugu qaalisan adduunka. Horta intaa gudaha u gala muuqaalka nagu soo biira. Let's go. koobka horyaalka Talyaaniga ama sida loo yaqaan Serie A waa koobka shanaad ee ugu qaalisan caalamka, qiimihiisuna waa $66,000 Mareykanka ah. koobka qaramada Afrika. koobkani laga soo bilaabo 1980 wuxuu soo maray 3 marxaladood. Hadda kan la isticmaalo waxaa la soo saaray 2001, qiimihiisuna waa $150,000 Mareykanka ah. Ballon d'Or-ka. Inkastoo la xusayo inuusan ahayn abaalmarin kooxeed, balse wuxuu ku jiraa liiska koobabka ugu qaalisan kubadda cagta ilaa iyo haatan. Ballon d'Or waa eray Faransiis ah kaasoo laga wado kubadda dahabiga ah, qiimihiisuna waa $600,000. FA Cup-ka waa koobka ugu qaalisan Ingiriiska. Bogwii Sports ayaa shaaciyay inuu xitaa ka qaalisan yahay koobka Premier League, qiimihiisuna waa $1.18 milyan. koobka adduunka. Waxaa shaki ku jirin in koobka adduunku yahay abaalmarinta ugu qaalisan kubadda cagta, waxaase hal dalin iyo dagaal dheer loo soo maraa sidii loo qaado, qiimihiisuna waa $20 milyan. Fadlan haddaad ka heshay muuqaalka, subscribe noo taabo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.